wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland mudane Liibaan Yuusuf Cismaan ayaa xilkii u kala wareejiyay agaasimihii hore ee waaxda cududa shaqaalaha iyo agaasimaha cusub ee loo soo magacaabay xafiiskaasi. munaasabadda xil wareejinta labadan mas'uul oo ka qabsoontay xarunta dhexe ee wasaaradda ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda waaxaha ee wasaaradda iyo shaqaalaha xafiiska cududa shaqaalaha. ugu horreyn waxaa halkaasi hadal ka jeediyay agaasimihii hore ee waaxda cududa shaqaalaha Cabdiraxmaan Ibraahin Xasan. waxay tahay aniga maalin weyn dhinac wayga farxado mataqaan waaxdii runtii aan mataqaana xagga maamul ahaan ku soo bartay waaxdii ugu horeysay agaasimo ku-xigeen baan ka soo noqday muddo sanada haddana waxaan noqday agaasimaha waaxda sanadii mataqaana 10 bilood baan joogaa kadib imika waxa la wareejiyay waaxda adeega caafimaadka iyo isbitaalada taas markaa waxa weeye dhinaca waa ka farxad dhinaca kale markaad eegto xiiso badan bay gelaya tiimkii runtii aan la soo shaqeynayay oo aan wasaarad ahaan ka tagin oo tiim qaali ahaa oo runtii tiim inaan u mahadnaqa ay tahay mar kalena saddexaad way farxado waaxda waxa loo soo magacaabay laba mas'uul oo tiimkii shaqeynayay kamid ah ayuu wasiirku soo gartay runtii taana aad baan ugu faraxsanahay. sidoo kale mas'uuliyiin uu kamid yahay agaasimaha waaxda caafimaadka guud ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. agaasimaha cusub ee loo soo magacaabay xafiiskan ayaa iyaduna xafladii ay xilka kula wareegaysay ka jeedisay hadallo kala duwan. aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa mudanayaal inaad maanta aad noo doorateen inaan ka mid noqono mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka xilka iyo waajibaadka iyo mas'uuliyadda aad noo igmateena aanu qaban doono waanu idinka aqbalay waana idinka mahadcelinaynaa. ilaahina waxaan ka baryayaa xilka iyo mas'uuliyadda maanta aanu kula wareegayna halka inuu ilaahay noo fudaydiyo oo uu nagu astiro. ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland mudane Liibaan Yuusuf Cismaan ayaa xilka si rasmi ah ugu kala wareejiyay labadan mas'uul. sunnaha nolosha ka mid tahay isbedelku dadku qofku meel uu ma joogo waligiis yaalihii macal qofku guriga uu ku dhashay baa laga yaabaa inaanu intiina midna guriga uu ku dhashay aanu joogin baa laga yaabaa magaaladii uu dhashay inaanu joogin baa laga yaabaa marka shaqaduna taas oo ka mid tahay nolosha oo dhan baa sunnaheedu yahay isbedbedelka maanta halka joogto bari ma joogtid marka wax la qariibsado iyo wax la dhibsado midna maaha bal noloshay u wanaagsantay qofku inuu 2 sano haduu meel joogo 3 sano joogo waxa xitaa yaraanaya wax soo saarkiisii baa yaraanaya fikirkiisii baa yaraanaya muxuu ahaay hamigiisii baa yaraanaya marka in qofku uu isbedel sameeyo noloshay u wanaagsan tahay marka aad iyo aad baan runtii muxuu ahaay aanu soo dhaweynayaa runtii waxaan doonayaa inaan yara dul istaago muhiimadda ay leedahay waaxdan cududa shaqaaluhu sidoo Cabdiraxmaan sheegay caafimaadku wuxuu ka mid yahay wasaaradaha ugu waaweyn xagga shaqaalaha ilaa 8,000 iyo charger qof baa ka shaqeeya oo shaqaale u ah oo kala duwan shaqaale sare ilaa shaqaale hoose ah profession kala duwan ah gobolada dalka oo dhan jooga qaar yihiin shaqaale rasmi ah qaar yihiin shaqaale muxuu ahaay temporary ah 8,000 waaxdaas u shaqeysa xarunta looga shaqeeyaa inteena ka mas'uula shaqada aynu qabanaa waxay ka muuqanaysaa sidii mahdi sheegay adeega haddana cadaalad darro jirto oo daahfurnaani aanay jirin oo aanay shaqaaluhu qanacsanayn oonay mabsuud ahayn waxay qaadanayaan iyo taasi waa sheeko kale waa hayntay ku xidhan tahay resource-ka inay ku xidhan tahay laakiin waa inay meesha qofku uu ku qanacsan yahay system-ka uu ku jiro iyo shaqada uu dalka u hayay inuu muxuu ahaay cadaalad ku helayo hadday noqoto dalacsiin hadday noqoto tababar hadday noqoto scholarship iyo hadday noqoto muxuu ahaay upgrading intaba waa inuu qofku aaminsan yahay inuu cadaalad u helayo marka mas'uuliyaddaas saaran ilaahayna waa kula xisaabtamaya aadamahana waa kula xisaabtamaya waana meesha ugu muxuu ahaay cabatinka badan leh qof walba wuxuu doonaya ayaa cadaalad u ah oo marka uu ku imanayo isagoo laga yaabo inuu 2 bilood ka hor yimid oo joogo mid 13 sano shaqeynay isagoo in tiisa u qabataa cadaalad u ah hadda tiraahdo war adigu imika timide waxa joogay mid 10 sano joogay mid 12 sano joogay oo aan halka waxaan doonayso aan helin marka waxay u baahan tahay qofka in runtii la qanciyo sida lagu qancinayana waa in uu jiro fairness waa inay daahfurnaani jirto waxaan aaminsanahay runtii
anigoon faanayn wasaaradda horumarinta caafimaadku inay ka mid tahay wasaaradaha ugu horeeya xagga daahfurnaanta taasaana ummadda somalilan oo dhan deeqda 4 waxbaa muhiima ta koobaad waxa weeye fairnesska in dadku cadaalad helo iyo daahfurnaan oo aanay waxba cidna loo eexan cidna wax gaara la tarin waayo wax alliyaale waxay kordhiso waxay xumayso mooyaane ma jirto